Kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho iyo xiisada u dhaxayda midowga musharaxiinta iyo ciidamadii ugu badnaa oo ka mid ah kuwa badbaado qaran oo gudaha u soo galay caasimadda magaalada Muqdisho. Farmaajo oo xaaladdu ku xun tahay isla markaana wajahaya cadaadiskii ugu weynaa tan iyo markii uu xilka qabtay. Farmaajo oo u muuqda inaan laga aqbali doonin waan kasta iyo dhexdhexaadin kasta oo la isku dayo maadaama uu ka tallaabsaday xadkii loogu talagalay. Qodobadaas ayaan ku eegi doonaa iyo sidoo kale ciidamo ka mid ah kuwa midowga musharaxiinta ee la magac baxay badbaado qaran oo hareeraha ka jooga madaxtooyada Soomaaliya. Wadooyinka ay joogaan iyo goobaha ay hadda ku sugan yihiin ayaan ku eegi doonaa barnaamijka inta halkan ka baxayo. Sidoo kale waxaan idiin haynaa madaxtooyada Soomaaliya oo qayb ka mid ah ay degeen ciidamada midowga musharaxiinta waa kuwa badbaado qaran. Fadlan haddii aad ku cusub tahay waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe saarato barteena Galangal News si aad noola socoto wararkii ugu dambeeyay halkaan aan lagu tixnaato si ay nagu soo xirmaan saaxiibo wanaagsan sida adigoo kale. Aan gudagalay midowga musharaxiinta Soomaaliya ayaa maantay ilaa iyo xalay waxay kusii qulqulayaan xarunta madaxtooyada Soomaaliya oo uu joogo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble isla markaana uu ka hogaaminayo dalka tan iyo markii uu habeen hore soo saaray Farmaajo warqad qariska tuurnimo ah isla markaana uu sheegay inuu shaqadii iyo xilkii ra'iisul wasaaraha awoodiisa uu hoos u dhigay. Wixii intaa ka dambeeyay waxaa isbedelay caasimadda magaalada Muqdisho. Dhaqdhaqaaqa ciidan ayaa bilowday iyo abaabul midowga musharaxiinta ayaa u kala orday isla markaana u muujiyay ra'iisul wasaaraha garab istaag shirar iyo sidoo kale abaabul ciidan ayaa bilowday. Waxaa magaalada soo galay ciidamo aad u fara badan oo wata gaadiidka dagaalka oo ka soo jeeda beesha degta magaalada Muqdisho ee Hawiye ayaa hadda waxa u muuqdaa inuu fahmay dhagarta uu maleegayo madaxweynaha Soomaaliya ee xilkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo si bareera iskugu dayay inuu wadanka ku qabsado inqilaab militari oo kadibna fashilmay. Farmaajo ayaa xalay isku dayay inuu la wareego xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo habka awood qaybsiga uu ku matalayay beesha Hawiye. Farmaajo ayaa ilaa iyo hadda waxa uu ku howlan yahay sidii uu wadanka ugu qabsan lahaa inqilaab militari. Ciidamo ka mid ah kuwa Koonfur Galbeed oo la sheegay inay yihiin 300 oo askari ayaa saaka la soo geli doonaa magaalada Muqdisho isla markaana magaalada Baydhabo laga soo qaadi doono walow aan la ogeyn ciidamadaasi meesha ay ka degi doonaan iyo garoonka ay si rasmi ah uga soo degi doonaan. Waxaa la isla dhexmarayaa sidoo kale in ciidamada midowga musharaxiinta ama badbaado qaran oo ka soo jeeda beesha Hawiye ay kusoo qulqulayeen ilaa iyo xalay magaalada Muqdisho. Waxay saldhigyo ka samaysteen wadooyinka soo gala madaxtooyada sida wadada Ceelgaabta oo ah halka wado u fureed madaxweynihii hore ee Soomaaliya ee madaxweynaadkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana hadda ku jira guriga madaxtooyada. Waxaa sidoo kale jira ciidamo kale oo hubeysan oo jooga guriga uu ka degan yahay madaxtooyada ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxayna qoryo culculus la saaran yihiin dabaqyada kore ee uu ka degan yahay Maxamed Xuseen Rooble fila Soomaaliya. Farmaajo waxa uu muuqdaa mid nafla caari ah isla markaana aysan muuqan wax waan ah kadib markii ay qof kasta oo ka soo jeeda beesha Hawiye ay gacanta ka taageen Farmaajo uusan ahayn nin u diyaara xal iyo doorasho isla markaana wuxuu awoodda wadanka rabaa inuu ku qabsado si awood ah iyo ciidamo militari. Sidoo kale waxaa muuqata in madaxweyne Farmaajo uu sidoo kale hadda wajahayo cadaadiskii ugu weynaa tan iyo markii uu qabsaday fila Soomaaliya ama uu la wareegay xukunka dalka. Waxaa sidoo kale isa soo taraya dadka dal iyo dibad ka soo qaylinaya ee ku boorinaya in uu filada ka soo baxo wasiir ka tirsan kuwa arrimaha dibadda Mareykanka ee u qaabilsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu hadda yahay nin ku howlan inqilaab. Waxay sheegeen inay tallaabo cad ka qaadi doonaan haddii uusan si degdeg ah u joojin ficilada argagaxa leh ee uu wado. Dowladda Mareykanka ayaa waxay tahay xukuumadda ugu awooda badan ee dhaqaalaha siida dowladda federaalka Soomaaliya waxaana sidoo kale muuqata in madaxweyne Farmaajo ayba halis ugu jiro in lasoo taago asaga maxkamad si loogu soo oogo faldambiyeedyadii uu geystay 4 sano ilaa iyo 5 sano ee uu xafiiska joogay. Beesha Hawiye ayaa iyaguna isku dhaartay in aysan mar dambe aqbalin waan kasta oo Farmaajo uu kusii joogi karo xafiiska. Waxaa guriga
guriga uu ra-iisul wasaaruhu ka degan yahay madaxtooyada Soomaaliya hadda ka socda abaabulkii ugu dambeeyey oo ay uga arrinsanayaan sida ay farmaajo uga soo saari lahaayeen filada. Saraakiil ciidan oo waxaa la kulmay farmaajo oo kana soo jeeda beesha Hawiye oo uu ka mid yahay Xasan Jaamici iyo Liibaan Madaxweyne ayaa sheegay inaysan marnaba u hoggaansami doonin amarada qaldan ee uu siinayo dadkiisa. Ra-iisul wasaare Roble ayaa isaguna hadda waxa uu yahay ninka keliya ee madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday farmaajo ku tilmaamay madaxweynihii waqtigiisu dhammaaday. Roble ayaa hadda waxa uu fahmay inuu ka faa'iideysanayo awooddiisa dastuuriga ah. Sidoo kale waxaa muuqata in ra-iisul wasaare Roble uu hadda u muuqdo nin awooddiisa fulinaya. Wuxuu amray taliyayaasha ciidamada inaysan u hoggaansamin amarada qaldan iyo farmaajo, isla markaana ay ka amar qaataan oo keliya wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda amniga iyo isaga oo keliya. Roble ayaa hadda waxa uu joogaa guushii ugu weyneed tan iyo markii uu xafiiska yimid. Farmaajo ayaana hadda waxa uu ku soo koobmay oo keliya inuu soo saaro warqad, waxaana lagala wareega guud ahaan baraha bulshada ee ay leedahay dowladda federaalka marka laga reebo page-ka madaxtooyada oo farmaajo ilaa hadda wax ku soo qoro. Fadlan daawade haddii aad ka mid tahay dadka kasoo jeeda magaalada Muqdisho aadna kasoo horjeeda madaxweyne farmaajo, waxaan kaa codsan inaad share tiraahdo muuqaalkeena lana wadaagta saaxiibada oo ku maasan tahay daawashada.